dadii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo Safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaasaan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayada waxa jirta lacag $22,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas saan horeba kuugu sheegay waxaan kala soo fariistay ama diyaar wahay wixii aan Safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas waligeed carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiina ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartankayda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto waxgaag halkani waxa ku sugan barbarkayga Cabdi Ciise Cajuun oo runtii ah abwaan da'yar kana mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa hadda ku nool Cabdi sideen loo wada soconay baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay waxa haystay sawiro iyo muuqaalo laga duubay fanaanadeena qaaliga ee Safiya Tusmo oo runtii ah hooyo Soomaaliyeed isla markaasina lagu soo bandhigay baraha bulshada taasi oo muran fara badan dhalisay bulshaduna kala duwan ay uga daran celiyeen bal ugu horeyn waxaan jecelahay maadaama adigu aad tahay eedaysamihii loo soo jeediyay inuu falkaasi ka dambeeyay oo sawiradaasi soo dhigay bal qaabka ugu horeeya ee aad isku barateen adiga Safiya iyo xiligaad isbarateen inaad noo sheegto sagale horta walaal aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa aniga Safiya waqtigan isbaranay hadda waxaan isnaqaanaa muddo ku dhow 2 sano waxaan isku baranay suugaan silsilad ka bixi jirtay channelka Cabdi Askari TV oo isagana halkan aad uga salaamayo oo silsiladii ahayd habliyo xishoodkii xageebad ku xorteen ayaduna hees ku lahayd aan hees ku lahaa marka waqtigan isbaranay waqtigaas ay ahayd muddada hadda laga joogaano waa 2 sano 2 sano wahagaag goobtii ugu horeeyay isku barateen ما إنه تلفون كود هذا الله سينا نشاركنا أنت هذا تلفون كود هذا لنا لكن نشاركنا أنا يدو حتى سوقها ورسا حتى سوقها ورسا أركتي أهان هذا سوقها ورسا لكن حرير واحد كو حريري شرتين تلفون كها لين على تلفون كها واتساب كم بس نشارك أنت بقول كود هذا الجري لكن سلا يفعلنا نشاركنا ما أنت سوقها ورسا قاب كذا حريري شرتين نسال شرتي وحوها قاب سوقانات أن ها مركها يعني هي قاب كان سكوبر النادي ودي سي صارت سكوبر النادي أول مرة واحد هيد سوقان يفن سكوبرنا ساسين maxaa intaasi ka sii dambeeyay intaasi waxa ka sii dambeeyay aniga Safiya waxaan dhex maray relationship iyo sheeko iyo xiriir dan halkaas xiriirkaasi intee lag buqaat wallahi horta waxaan soo xiriirinay sheekaysanay muddada naqaanay waxay ahayd 2 sano laakiin waxaan oran karaa muddada sheekaysanay ama yani xiriirka lahayn hal sano iyo dhowr bilood meel hawo noqonaysa waxaad markaynu intaasi ka nimaadno waxa timid magaalada Hargeysa qaab nooceed ku timid magaalada Hargeysa halkeedsa ka timid marka hore waxaan ka yimi magaalada Egypt wadanka Egypt gaar ahaan magaalada Qaahira hadda wadanka waxaan joogaa adigu muddo 9 bilood meelahaas marka sababta ku yimi iyo arrimahan ku yimi mid aniga Safiya na dhex maray ama aan isku weyn ka wada soconay sida dad badan oo xogaal noo hibay ka dhigsan bay ahayd saasoo waxa jirtay in lagu xidhay magaalada Hargeysa CID-da ama sirdoonka lagaaga yeeray bal sheekadaasi siday ku dhacday iyo qaabkii u dhacday baan doonayaa inaad nooga waranto sheekadaas horta dadku inta badan waxay ogyihiin xariga Safiya laakiin dadka in yar oo adiga iyo dhowr qof oo kala aba inaan aniguna la xidhnaa og laakiin sheekada hadda bulshada u biyaamiyo maalintan heestan ismuutiisay qalinliye maandeeq ay wada qaadan aniga Safiya doobnay aan ka soo dareernay 5 galabnimo Crown Hotel meelaha ayaa markaan meesha ka soo dareernay waxaan isku weynaa xagga suuqa isugu nimaadno deetana inantii telefonkeedii baa xidhmay anagu isma naarag 9 habeenimo ila soo haashay gurigay waxay sheegtay in iyadii Safiya la xidhay xagee la idinka qaaday baan ku wuri markaa waxay ku tiri home cable ka horsan laga qaaday indhahana laga xidhay aniga Safiya markii dambe aan indhaha ka xidhan baa la soo celiyay Safiyana wala la xidhay عيد مدينة كيسي ميعين ميركين مركا واضح هذا ميل كره ما قرأ ما قرأني بس ماشي ملهى دن وحن كنا دمنا هذين يوم إن نسوه له إن سكودينا سلك الدحانمي سلك الدحمر خانمي وحلي يقول كم شرتو كودبور بنتجي مركان كودبور تقول كل قبل اسمه شو بقول إنت ليش شو بين أيوة حلي قاعد تلفون كول يقول سو عبد العزيمتي ها تلفون كانوا بهنا تاني سؤال عن سكرت فيديو إحنا نقطي قف حلم بابنا سؤال ما حد تلفون كي قال قربا كذب أن وحلي يقول تلفون كاجا وحاو بهان CID ده
وانا امر انغا naga sareeyo haye telefonkaygi waan siiyay waan deegtana ka tagay haye inantii baan markaa la hadlo waxaan ku oranayaa oo fiima aan la hadlo waxaan ku oranayaa gabadhii waxa la igu yiri xagaasay ku xiran tahay laakiin anigu ma arag anigana telefonkaygi baa laga qaaday haye labadii habeenimo mar ay ahayd ay haddana inaan soo waxay ku tusafiyootii xanuunsan in dawooyin iyo alaabo geeyno haye dan inantii waxay ku timi guriga anigoo la fadhiyo Cabdinaasir Macalin Ciidiid Cabdiraxiin Axmed Carab oo isagana halkan aad uga salaamayo anigoo xir badana kadib iyadoo gaariga watay guriga igu timi waxay ku timi ka maarmi maayo inaad raacdo ama aan Safiyo dawada u geeyno tii xanuunsan okay waa sax baan ku wari waan suraacnay markii aan salgid ku noqday markii labaadna waa la xidho wax lagu adigana waa lagu baahan yahay soo habeennimadii halkii baan ku hoyday inantii iga soo noqotay baan u qoray fiimaha ahayd baan u qoray markii xaafadeeda waxaan ku xaafadeeda iyo reerkiisa ugu sheegan aan xidhanahay dan subaxii markii ugu bari baan indha ka xidhan lay qaaday CID da leegay CID da maanta ma ku xidhnaa shantii galabnimo markay ahayd baa la yeeray dan waxaan ku wari maxaan ku xidhanaa waxa la igu yiri lambar aad leedahay adigu telefoonada oo kugu qoran ayaa lambar aan raadinayay muddo dhowr sano ah soo wacay labada lambar markaan anigu sitaaba isagoo kan gabadha u dhiibay baan weydiiyay waxa la igu yiri waa ka gabadha u dhiibtay gabadhaasi waa Safiya marka okay marka lambarkan xilliga la soo wacay xilliga anigu sitayba mise waa xilliga iyadu sidatay waqtiga lambarkan aan raadinaysan ay contactiga la sameysay marka waxa la igu yiri waa inta iyadu sidatay dibas hadaba iyada la xiriir baan ku wari dan waxa la igu yiri waa sax waxaan u baahnay gmail-kaaga يعني dadka qaar bararkay bara bulshada ku soo qoriyay ninkan uu istifaaciyayo hadii la wareysto hadalka run kama sheegayo CID da iyo ciidanka qaranka iyo maanta Hargeysa jooga wax been laga sheegi karo ama aan yani waxaan la igu sameeyay ama falan la igu la kicina ka sheegi karo maaha dan waxa la igu gmail-kaaga u baahanay baasuurkiisa dan waxaan weydiiyay maxaa gmail-kaaga iyo lambarka la soo wacay gabadhu seeto iskaga xidhan waxa la igu hawlan anagu u baahanahay telefonkaaga waad ka tagaysaa adigana waan ku sii deynaa gmail-kaaga saxda ah isticmaasho noo sheeg laba nin baa markaa wareystay labada nin gmail-kaaga baasuurkiisa weydiiyeen sidii baan ku siiyay waan tagay marka saddex cisho marka la iga hayay ayaan soo noqday deetana waxaan u tagay Faisal Xiis waxaan ku dhahay telefonkayga waa la iga haystaa dimension aad ka shaqeyn jiray macna la iga qaaday qaab la iga haystay midna ma garanay hadii aan dambi leeyahayna nimankan ay sheegan waxay telefonkayga ku haystaan hadii kan la soo siiyaan inankiiba markaa la hadlay kiiskayga gacanta ku hayay wuxuu ku ninkan haduu kiis leeyahay ana xiraya hadii kan telefonkiisa soo siiyay anoo yimaado baa la yiri berito la galabnimada markaan tagay waxaan u tagay waxa la dhibay tele waxa la yiri si fiican baad yeeshay si wanaagsan runta noo sheegtay telefonkayga oo la restore gareeyay tan waxaan ku maxay ku dhacday telefonkayga la restore gareeyay hadii waxyaabo adiga ku anfacayo kiis ku ay aniga kiis ugu ay ku jiraan maalinta soo qaato cadeynay iga dhigto deena maxkamadda ugu geysan sababta keenaysa in telefonkayga la restore gareeyaa maxay tahay tan wuxuu yiri niyo arrin si qalad ah u dhacday weeyaan okay telefonkayga si qalad ah u dhacdo gmail-kayga in la bedelo oo la guba iyaduna mid si qalad ah u dhacday baan ku yiri dan waxa la yiri waxaan ku balan qaadanay xogtaada inaan ku soo celino arrinkanna waa mid qalad kugu dhacay markaa waxaan la yaabay bay igu noqotay waan iska soo baxay sidii baan ku yimi arrinta xalagaygu iyo ka Safiyay saas waa xaaladda ka marayna taasay ahayd وحاجات dadku waxay inta badan isweydiinayaan oo maxaan idhaahdaaye lagu soo celcelinaya oo waliba anagoo de hooyooyinkii Soomaaliyeed kamid ah aan aad uga dareen celinay inaad adigu ka dambeysay Safiya sawiradeeda lagu baahiyay baraha bulshada waliba muddo in badan oo 2 sano ah aad Safiya lacag kula baayactamaysay $2,000 oo xataa jirtay sida la sheegayo inaad meel magaalada ka baxsan intaad la tagtay aad baastoolad madaxa kaga qabatay oo tiri haddaad lacagtaas bixin weydo maxaan idhaahdaaye naftaada sawiradana waan baahinaya sawirada inaad soo dhigtay ta lacagta aynu dambaysiinay maxaa ka jira mi horta arrintaas waa arrin aad iga yaabiyay yani mudbayna Soomaaliyeedu cid waliba dhaqan bay leedahay yani horta ariga iga suurtooba iyo waxaan yeeli karaa midna maaha hablaan la dhashay hooyo ay dhashay haddana anigu qabaa yani midda kale qofka doonaya qof inuu ceebaya isagu iskama bilaabo qof adduunyada ceeb ku naaxa ma jiro oo yani isagu yani shakhsi bilaadan oo dhibka raaxa moodaya ma garan karo de meel ku nooliyay ama dadka qeylinayo inuu ku jiro laakiin qofka doonaya inuu qof ceebaya inuu isagu iska bilaabo wallahi ma garanayo meel ka dhacday meel lagu arkay toona almiina xitaa hadii yani horta wixii iga suurtoobiyo waxa sameyn kara midna maaha hadii si xitaa dadku waxaan isweydiinayn haddaan anigu sawiradan qofka soo dhigaya ama u bareerayahay maan garan waayin xitaa inaan wajigayga ama indhahayga ama madaxayga meel uun qariyo xitaa soo moogid marka arrinkan waxaan shaqo ku leeyahay maaha wixii iga suurtoobana maaha waxaan sameyn karana maaha waxaan sameyn jirayna maaha waxaan sameyn doonana maaha waxaan aaminsanay shil aniga Safiya nagu wada dhacay inuu yahay
cid kasta oo falka ka dambeysay maxaad cadeyn haysataa ama ku cadeynaysaa inaanad sameeynin falkan maadaama dadkoo dhani ay aaminsan yihiin oo ka aamineen inaad waxaan sameysay adigu sidaan horta kuu sheegay aniga Safiya horeba kugu sheegay waxaan nahay laba qof oo relationship ka dhaxeeyay haddii aan markaa u baahnay ceeb aan iyada ula bareeraya inay jirto ma waa in sawir kaligeeda laakiin ceebta aan walaashay la doonayo anigu iskama bilaabeen waxgaag abwaan Cabdi Ciise waxa intaasi sii dheer maadaama ninka gabadhiisu ay tahay hugiisa oo ay tahay inaad yani maadaama hugaygi tihiin inaad noo xil qarisaan asturtaan Safiya waxay sheegtay in gurigeedii ay ka dhax bilaamatay sheekadu oo yani adigoo ninkeedii aad ceebaysay bulshaduna waxyaabaha aadka ay uga dareen celiyeen ee looga fal celiyeen ilaa anaguba aanu ka xumaanay ay tahay naagde ama gabadh uu ninkeedii ceebeeyay oo maradii ka qaaday arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa san horeba kugu sheegay horta ninka gabadhan ceebeeyay waa adiga horaan kugu sheegay waa ka madax banaanay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga Safiya ma relationship naga dhaxeeyay sheeko bise inay gabadheedii ahayd relationship iyo sheeko way naga dhaxaysay laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto haddii wax intaa ka duwan oo la hayaa ay jirtana ciddii haysaa soo madhubta diyaar baan waay marka waxaad leedahay wax qabisa oo meesha jirta maba jirtaba maxaad ku cadeynaysaa wallaahi kulley guurku waa wax weyn Safiina waa gabadh caana marka la isbursanayana wax qarsoon maaha marka la isfurayana wax qarsoon maaha marka hadda tusaale ahaan walaashii Safiya saan anigu iyada ka maqlay ama kalibadan daawaday 3 jeer bay hadashay marka koobaad ee ay yani arrinkan laga jabsaday sheegaysay waxay sheegtay in relationship yeelan karto qof cid relationship ka dhaxaysa jirto oo relationship naga dhaxeeya jiro marka labaad wareysiga ay Shiina culeysay waxay sheegtay in dad isqabay oo isjecel nahay dadkana naga dhax baxaan marka saddexaadna waxay sheegtay inay furiin dalbatay kiina ay ku guuleystay oo la furay waa isla muddo 5 cisho gudahooda waa saddex hadaloo madiinimadu u dhaweyn sax wala la marka hadda muhiimadda markaan ku soo ururiyo aniga iyo inta wax qabiso naga dhaxeeyo oo meel noo yaala haba yaraatay ma jiro waxagaag waxa jirtay muddadii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo Safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaasaan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jira iyada su'aasha anigu hadalka iyada kamaan maqal laakiin waxay cid kale yiraahdeen ama qof YouTube yiri ama qof kale live ka hadlaya yiri aniga waxay qosay maaha kaliya waxaan diyaar u ahay wixii aan walaashay ka maqal kaliya inaan ka jawaabo marka waxaan sin waxyada ka soo baxay maaha waxaan hadda anigu jawaabo waayana maaha because waxay tiri maaha خلاص waxagaag waxa jirta inaad baxsatay sida dadku sheegeen Ethiopia u baxsatay arinta baxsiga maxaa ka jira horta sheekadan waxay socotaa muddo 6 cisho anna sida sagalay adigu waqtiga waxaan ka maqnay magaalada waxaan ka maqnaa 22 cisho marka falku goortu dhacay iyo goorta anigu tagay horta wax isu dhooba ma yahayn marka wuxuu ma arkaa in hadal meel waayay haddaan baxsaday hadda waan inga soo noqday cidii doonaysa hay timaadadu waxagaag waxa jirta lacag $22,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas saan horeba kugu sheegay waxaan kala soo fariistay ma diyaar wahay wixii aan Safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas waligeed carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtigan ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartankeeda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto mar kale aan kugu celiyo lacag $2,000 ayaa bil kasta ay biil kugu soo diraysaa leeyahay Safiya arinta kale iyadana maxaa ka jira horta laba qof sheekaystay relationship ka dhaxeeya wax way day suduriyaan wax way kala qaadanayaan oo way magaranaysaa wax kasta dhex mari kara laakiin cadadka la sheegay iyo waxaan aniga Safiya isu diri jiray anigu ma ogi oo $2,000 ee bil kasta joogtada hayo ama aanu kala badsano ama aanu kala yareysano laakiin dadka marka ay sheekay xiriir dhaxayaan wax way sasinaya waxay laakiin Soomaalidu cabiratay wallahi iyaga ka jawaabaya waxagaag waxa jira Facebook lala dhaxmarayay imika qaybaha baraha bulshada oo daqiiqad loo soo update gareynayay oo ilaa sawir aan galay la soo dhigay oo adiga ka hadlayay Facebookaasi ma adiga isticmaala
anigu facebookigi muddo 5 cisha deactive baan ka dhigay hawada baan ka saaray laakiin waa fake account iyo dad ama falo ku raadsanaya ama wax kale ku deedeeyay wax facebook hadda anigu gacanta igu jira waqti xaadirkan ma jiro hal facebook baan isticmaalaa kiina deactive baan ka dhigay hawada buu ka maqan ma jira intii ay soo baxday sawiradan lagugu eedeeyay inaad ka soo dhigtay walaashin Safiya Tusmo wax dhibaato adiga ku soo gaadhay maxaa ku soo gaadhay nasabcay bay soo gaadhay hanjabaad bay soo gaadhay qaar la waan ku dilayna bay soo gaadhay qaar la hargeysa sidoo soo noqon bay soo gaadhay yaanihi tii adigu waa yaanihi wallahi waxaan xitaa yaani hadal aan meel u haystay iyo meel u socday iyo meel ka socday min aan garanayn baan waararkayo waan dhaafayo laakiin haddii ay tahay adiga habaar kaysa leecayo haddii habaar tahay adiga habaar kaysa lee habaarayo haddii aan jabaad tahay wax qarsoon bade maaha markaas u soo jeedinaysa bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa horta dad 1 milyan ku dhow ayaa baraha bulshada naga habaarayay oo in badan habaartamay oo ma garanaysaa waxaan raaco Ilaahay magan ugahay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo habaarkeeda aanu qasaarin mid Ilaahay ka aqbalo oo noqdo hadaad falkii geysatay hadii marka hadalka waan ku soo wadaayay hadii waxaan anigu sameeyay uu yahay ummadda Soomaaliyeed ee 1 milyan ku dhow ay habaartamaysay waxaan habeenka caawa jecel in Ilaahay ka aqbalo waxaan geystay haduu anigu yahay inaan Ilaahay iga harin ummadda Soomaaliyeed habaarkoodaasi igu dhaco hadii kalena cida geysatay uu ku dhaco sideed u aragtaa in tabriyaha dambe waxa soo badanaya in gabdhaha la ceebeeyo adigoo kaba midaba deemka eedeysanayaashii inkastoo halkan iska difaacday sideed u aragtaa qof gabadh ah oo waliba ama caan ha noqoto ama yey noqonin in la ceebeeyo ama la handado oo la blackmail gareeyo loogu hanjabo waxaasan ka hayaa iyo waxaasan kugu sameyn doona waxaan arkaa wax aad iyo aad u foolxun xaraana dhaqanka islaamka ka baxsan diinta islaamka ka baxsan dhaqanka Soomaalida ka baxsan yaani oo waxda la tilmaamo wax lagu tilmaami kara aanu jirin ba waxaad markaynu ka soo noqono waxa jirta hees ay Safiya qaado heesta waxa la yiraahdaa wuu qiiqaya heestaasi bal qisadeeda ayaan jecelahay inaad nooga sheekayso ni horta heestaasi waxyaabo ugu badan la soo diriyay dadku ay ilaahayeen ninka gabadha san ugu hoybaad horta ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegayaa qofna madidiisa laguma gowraco heestan horta aan iska lahaa qisada heestuna sidan ma yahayn aniga Safiya wax naga dhaxeeyna ma yahayn waxaan taayada ka sameeyna ma yahayn waxaan iyadoo sameeyna ma yahayn waxa jirtay in Safiya habeenada kamid la soo hadashay yani inaan saaxiibnayo oo leeyahay Khadar Fiyoore Khadar Maxamed Abukur ninka la xanka saaray isagana halkan aad iyo aad uga salaamayo ayaa waxa ku soo gabadh baa jirta doonaysa hees deetana qisad dhaba marka maxay u baahan tahay in looga sameeyo waxa ku tiri gabadha ninkii ay isqabeen ee hore ayaa ninku kula lahaay wuu dhibay deetana wuu furay ciyaalkii iyadoo haysata wiil kale oo Soomaaliyeed relationship dhex maray marka xagga ka eegaysay inay kaga reysato dhibtii rafaadkii kii hore soo mariyay ayaa kiina iyadoo guursan ku noqday midkii kaga daran marka wayna jeceshahay hadda qof ay ka go'aan qaadan karto ama ay ka tagi karto ma aha deeto waxay u baahan tahay in qisadeedan loo tixgeliyo hees looga sameeyo waa sax waan ku wuri habeenkii horta heesta beeshka koobaad sameeyay ninkaasoo ila fadhiyay laxan ku saaray Khadar Fiyoore dan gabadha heestii waqtiga ay soo bixileed aniga Safiya ka wada hadlo waan weydiiyay marka waxaan ku gabadhii inantii maxaa ku dhacay heesteedii oo deedna waxay ku tiri gabadhii aabaheed baa dhintay gabadha waxay igu sheegtay magaceeda in Farduus la yiraahdo I think Minnesota iyo Minneapolis labada mid bay deganeen markii dambana inay Nairobi qabatay marka heestaasi waxaan naga naqusayna ma yahayn waxaan iyadoo sameeyay ma yahayn waxaan qisadayda ka sameeyay ma yahayn ee waxaan gabadhaas u sameeyay ayay ahayd sida aniga iyo ninkaasi waa aanu ka marxaati ahayn walaashay iyo anigu ma aan isloognahay waxaad ugu dambeyn fariinta diraysaa maxay tahay ugu dambeyn fariintan diraya aan rabeyna halkan ka diro ama ummadda Soomaaliyeed u sheego waxa weeyaan dadku horta galbay iska qaadaan waqti xaadirkan xitaa anigu imka waxaan dhibano waa cidaan dhibano oo hayba garan maayo haysato aan ka ahayn dad Facebook iyo YouTube ka qaylinaya marka laga reebo hadallada de walaashii ka soo yeeran hore uga soo jawaabay laakiin Safiya ma oran ninkana wax ka soo dhigay Safiya ma oran ninkana ay ceebeeyay oo inta jeeray hadashay badii qof yaani sida Ilaahay ku ogeeyay ma xaqo tahay u hadlaysa baheed waan uga mahad celinaya laakiin ummadda le waxaan baa dhacay iyo sidan baa dhacday waxaan leeyahay wax kulli hubsima hal balastaabay Soomaalidu tirada qof kasta iyo wuxuu qabanay Ilaahay baa marka waligiin yaalihiin dadka waxaan ku weenayaa inaanay gar qaadin iyagoo on labadii qof labadaba arag deyntaas uu gadhay aad iyo aad noona salaamay kii soo caayina waan salaamaya kii soo hawaarina waan salaamaya
kii difaacina waan salaamaya dhammaan waa dadkayga kulli hadii deecay ama qalad aaminsanayeen oo yani fikir qaldan dee laga dhaadhiciyay iyo intii ka saxan haysatay dee aniga ila socotay labadaba maanta waa dadkayga iyagana waan salaamaya وهاجاج أدب ما هتصنت هاي كاسنا وحوها عبد عيسى عجون أبوان كدا ذير ونكور السنة أرميه براها كل شدة قبصدي ولا شيء صفية تصمو تانية كلان تدم بس تاسينا بتقلي أدب ما سنتين